dareenkayga walaal waxa weeyaan guul weeyaan waa guulaysanay waxaan ku guulaysanay wax la yidhaahdo halbeeg ama milestone weyn oo ku saabsan dhismaha dowladda waqooyi bari kaas oo ah doorashada guddoonka marka geedi socodka dhismaha dowladda run ahaantii ilaa iyo hadda ah mid guulaysanaya oo guuliba guul ay ku dhiibayso ayaanu hasha guushii ugu dambeysay uguna muhiimsanayd in la doorto guddoonkii si nabadgelye leh oo qurux badan oo cadaalad leh oo really aada iyo aada u wanaagsan ayaan ku guulaysanay marka dareenkaygu waa yacni waa farxad kaba wax aan farxad ahayn ma jiro run ahaantii dareenkayga waxa ugu weyn marka ku hor yaalla ee aad doonayso inaad wax ka qabato adoo soo koobaya maxaa ka mid ah waxa ugu horeeya waxa weeye inaanu qabanqaabino doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo si hufan oo transparent leh u qabanno muddo koobanna ku qabanno si markaa ay dowladdii u dhammaystirnaato taasi markay dhammaato waxaa la gudagelayaa managementkii ama maamulkii golaha oo ah sharci dejinta waxaa la gelayaa samaynta xeer hoosaadyadii uu ku shaqayn lahaa goluhu shuruucdii uu ku shaqayn lahaa guddiyadii shaqayn lahaa marka maamulkii golaha run ahaantii iyadoo loo maamulayo si cadaalad leh oo muuqato oo waxa la yihahdo daahfurnaan leh oo yacni nidaam leh ayaanu gudagelaynaa si shaqadii sax ahayd ee dowladnimadaa la gelayaa oo anagoo weliba ku taamayna inay noqoto maamul iyo dowladnimo daahfuran dadkeeda u dhow ka fog musuq maasuq iyo iyo qabyaalad iyo wax daran oo dhan iskuna dayda inay dadkeeda u adeegto waxaad tidhi muddo kooban ayaan ku qabanaynaa doorashada madaxtinimada ama madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa marka muddada kooban maxay noqon kartaa ma bil ma ka yar ma ka badan wallahi mararka qaarkood waa adagtahay qofka marka la wareysanayo in lamber lagu calaamadiyo anigu muddadu weliba aad bay u koobnaanaysaa lamber ma rabo inaan ku siiyo oo hadhow lambarkii socon waayo laakiin waa koobnaanaysaa biidni illaahi markaan dib ugu laabanno nidaamkii iyo marxaladihii lasoo maray arrimahan doorashada maamulka waqooyi bari soomaaliya laga soo maray dabcan beelbeel ayaa wax lagu qaybsadaa laakiin markii ugu dambeysay oo ergooyinka lasoo xulayey deegaankaadu kuma uusan qanacsanayn sida wax u socdeen iyo qaabkii xulitaanka xildhibaanada marka arrintaa ma la xaliyey waxa weeyaan marka process wax la samaynayo process loo marayo gaar ahaan waxyaabaha humanka institutionska marka la marayo way jirtaa in la isku khilaafo processkaas oo la isku khilaafo kootooyinka dadku ay leeyihiin ama xisbiye ha noqdeen ama siday doonaanba haysu qaybiyeene in la isku khilaafo wax la isku diido qolaba wax jeclaato qofa meel ka arko waxaasoo dhan waa caadi oo normal muhiimaddu waxa weeyaan marka ugu dambaysa guushu waxa weeyaan in la isku raacay hadda waxaanu joognaa marxalad la isku waafaqsan yahay oo la isku raacay wax allaala wixii ka soo baxay meesha kii hore yani wax khilaafsanaa ama wax saluugayana hadda waa la wada qanacsan yahay bini aadmiga lama wada dhergin karo laakiin hadda barnaamijka yaalla ee miiska saaran waa la isku raacsan yahay taas weeyana muhiimaddu waxyaabaha kale ee dabcan wararka ah ee soo baxaya waxaa ka mid a dadka qaarna ay qabaan ama ay ku doodayaan in barnaamijka hadda sida loo sameeyey ama sida hadda awood qaybsiga deegaanadaasi loo sameeyey ay tahay wax hadda oo keliya ah ee aanan sii socon doonin oo markii maamulka xoogaysto dabcan isbeddel uu ku imaan karo taa ma aaminsan tahay waxaan aaminsannahay muddada 5 sano ka bacdi in ummaddan loo diyaarin karo doorashadii caadiga ahayd ee baawarka lagu celin lahaa dadka gacantooda oo dadku ay iyagu ay coday lahaayeen hadda arrintaasi muddaa hadda inaga xigta laakiin himilada iyo goolka aan leenahay waa kaas waa ummadda tani inay iyagu doorato dadkii ay maaragtay xilka u dhiiban lahayd ayna sidaa noqoto ayaan anigu kolley sida aan qabaa sidaa weeye dee in la gaari doono iyo muddada 5 sano ah maaragtay wixii gaadha ayaa biidni illaahi alkariim ay arrintaa fulin doona laakiin saas weeye sida maaragtay runtii hadafka loo baahan yahay in lagu dhaqmo soo bixitaankaadii inaad guulaysato oo guddoomiye baarlamaan aad noqoto dowladda soomaaliya ee federaalka ah dad badan waxay aaminsan yihiin inay door weyn ku lahayd arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa dowladda federaalku door weyn waxay ku leedahay
wax kasta oo waddanka ka socda si kastaba doorkaasi ha ahaadee ayay ku yeelan kartaa kuna leedahay siyaabo kala duwan inay door ku lahayd guud ahaan aqoonsiga iyo de iyadaaba aqoonsanaysay maamulkan dee wax maaha ghariiba ma aha laakiin wax specific ahoo aan odhan karo doorkaasay ka ciyaartay kursiga ama waxa ma sheegi karo laakiin guud ahaan door bay ku lahayd marka laga eego dhinaca taakulaynta iyo aqoonsiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah. Shalay markii lagu doortay war kooban oo aad jeedisay waxaad ku sheegtay in deegaano ay idinka maqan yihiin oo deegaanadaasi aad ka shaqayn doonto sidii ay aad u soo celin lahayd ama loo soo celin lahaa marka deegaanadaasi xaggee bay idinkaga maqan yihiin? guud ahaan deegaanadaasi waa la yaqaanaado deegaanada waa la yaqaanaado waa dhinaca bariga weeyaan dhinaca waqooyi dhinaca waqooyi galbeed xuduud baa jirta aan hoogaa weli laysku khilaafsan yahay dhinaca bariga deegaanaha jira marka de kolley waad garan kartaa waxa weeyaan waa un dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga labadaba waa naga xiga maamullo kala naga xiga marka in aan heshiis lagu ahayn dhinaca xuduudaha labada darafba waa suurtagal weeyaan marka kuwaasaa loo jeedaa magaran.